kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa jimca mubaarak taariikhdu waa 17 abriil 2026 haddaba barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa qaybtan oo aanu aad uga hadlaynaa warka weyn ee saaran warbaahinta caalamka oo ah in Iran ay fasaxday maraakiibtii ku go'doonsanayd marin biyoodka Hormuz dhowr qodob marka u kala qaadaynaa sida warbaahintuba ay uga hadlayso marka koobaad marin biyoodka Hormuz siidaynta maraakiibta la siidaayay ma xadidan tahay ma waqti koobana maxaa lagu saleeyay maxay ku bedelatay Iran ayay warbaahinta Mareykanku leeyihiin marka qodobadaas ayaanu mid u eegi doonaa haddaba marka waxaa la yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku dhawaaqay Iran inay fasaxday maraakiibtii halkaa ku go'doonsanayd ee ganacsiga oo fiirsada maraakiibta ganacsiga macquul ma aha markab military inuu halkaa maro maya ma jirto waa diiday Iran macalinka weyn meeshaada ka fiirsanaysa Hormuz meeshaada taagnaane maraakiibta ganacsiga tire sufun at-tijariya lirada maraakiibta ganacsiga ayaa la fasaxay wax canshuurana laga marraba ogow canshuur ma jirto markaan waa la fasaxay maadaama meesha ay maraakiib ku banaan iyo dad fara badan oo rafaadsan iyo wax badan meesha la sheegay waa la fasaxay kuwaas waa gudbi kartaan ali wax shuruud oo ku xiran ina gudubtaana ma jirto way ilaa goorma ayay hawshan u soconaysaa Iran waxay leedahay 10 أيام حبت توجدت لبنان إسرائيل لبنان لكلا لحدقي طبعا كمالمون طبعا كاسو فرانا شوك هدي لسي لبنان قبل هالكان والحرا مركو عليه عريس كترام والسجد واقع حبت توجدت لبنان ووزير ذا مارتي إسرائيل كعريسي وحن وعريس إيران كيم Hormuz waa furayna adna xabadda laga joojiyo Lubnaan Hezbollah waa in xabadda laga joojiyaa Lubnaan waa in dilka laga daayaa taasa marka keenta la leeyahay inuu Trump ku dhawaaqo Iran markay ogolaatay markay tiri maadaama xabad joojinta ku dhawaaqday annaguna waa furayna Hormuz ninkan waa ninkii iska soo jaray heshiisa la gaari doona tan barnaamijkeygii hore ku soo qaadanay marka heshiiska uu sheegay marka waa hadda meeshaan ka bilaabanaysa marka waxa leeyahay waqti xadidan ay Iran fasaxday maraakiib xadidanna way fasaxday macnaha markab ganacsi bas markab dalxiis no markab dalxiis asaaw meesha isku barayna markab dagaal no ma jirto macnaha maraakiibta ganacsiga oo tijaarada ah ayaa halka mari kara waaya marka sheekadaas marka halkaas ay joogtaa warka marka meesha yaalo wuxuu yahay maxaa loo malaynayaa Iran inay ku bedelatay Iran maxay ku bedelatay inay Hormuz fasaxdo ka horta sidii shaba Hormuz ka xiritaankiisa dagaalka keenay dagaalkii uu ku xirmay dagaalkii xabad joojin haday ka dhacdayna waxay ahayd inay joojiso laakiin Iran waxay u xanibtay waxay ahayd arinta Lubnaan oo Israa'iil ay tiri waa sii wadaya dagaalka ayuuna halkaas saasa marka lagu sameeyay laakiin hadda telefishinka CNN ayaa wuxuu qorayaa wuxuu leeyahay oo Mareykanka laga leeyahay lacagay ku bedelatay Iran Mareykanka wuxuu bixinayaa 20 bilyan oo dollar oo Iran markii hore ay ka xanibeen ayaa loo fasaxayaa lacagtiina qaata war lacagtiina qaata barna dhaaf maraakiibta dadka masaakiinta fasax adduunkii shidaalkii cirka galay wax walba qaaliyoobay wax walba soo raqiisaan isla markii maxaa leeyahay shidaalka adduunka 10% hoos u dhacay wuu soo dhacay 10 uu maray ahad inuu sii dhacaa laga yaabo
hoosaa marka shidaalkii oo dhan waa soo degay waa la furay markii marka waxaa leeyahay 20 bilyan maraykanku ka xanibnaa ayaa loo ballan qaaday in waxooda la siinayo marka meeqa lacag ayaa Iiraan ka xanibanaa leeyahay Iiraan waxa ka xanibanaa 100 bilyan oo lacag ah warreeku taajirsan nimanku caadi ma 100 bilyan marka 20 waxa ka haysta kaliya Mareykan 20 Mareykanku uu fasaxaya inta kalena dawladahan kale oo reer galbeedka iyo waxa kan iyo meelo badan lagu kala xanibay oo Mareykanku ku xanibay kuwaas iyana marka dambe ayaa waxa leeyahay waa loo fasaxi doonaa marka aritaa marka way ku badasheenaa leeyahay falcelin marka maxaa ka yimid sheekadan Trump wuxuu la soo booday waan idin mahad celinayaa shaqada aa qabateen laakiin odagu wuxuuga kartiyo iska baaraya wuxuu leeyahay laakiin ogaada cunaqabataynteedu way idin sii saarnaanaysaa ilaa hawsha aynu ka dhamaystireen wax ka jira malaalin hadalkiisa cunaqabataynta iyo waxa kan iyo waxaan iska quraafaad ahayn awalba iska beenaan sheegay marka haddana hawsha way iska dhamaan doontaa hawshaas marka sidaas ay ku dhamaanaysaa nimankii Yurubiyankii ayaan war idinkaga hayaa oo hadda ku shirsan Paris 40 dawladood oo ay kala hogaaminayaan maaragtay Ingiriiska iyo maaragtay iyo Faransiiska ay hogaaminayaan kulan ay leeyihiin oo Yurub iyo dawlado kale ay ku jiraan arinta Hormuz looga hadlayay ayaa meesha la soo tagay Yurub marka barnaamijkan kii ka horeeyay waa ka hadal 6 toddobaad hay'adda tamarta adduunka waxay tiri 6 toddobaad shidaalka diyaaradaha Yurub waa dhamaanaya hadaa Hormuz la furin Yurub marka nafta hays تعبانة هاي لح تضبط كدب هدي وسيحرنا لها ديارتك على ملك هذا انتو فريحي وحي قاسا لو سو قد بيا قدري صدر وحي صدر هذا ما شاء الله كالأردية مركا شركة سو مركا وحو سدح قضب اي ايران اي كل هالليان ولي لما سو ساري لكن وربعين تويشي هاللسا وحلين مركو هوري إيران وإني إسكديسا مارتي هبكا نوكلير كاللغة يستسميس الشديس وإني إسكديسا كو مدى اللباد وإني جوجسا ويرردا أي كو قادو ودمدا دريس كلا إيران إي إسرائيل معناها دقال كوا جوجسانا سوما مردن بحيسكو ويررينا دلالكاس إسرائيل مركا هوشا جوجيا مدى السدحات furitaanka Hormuz shuruud la'aan ina furtaan oo canshuur iyo waxa kan iyadoo la qaadin waa inay wax kasta baraan marka waxa dhahaya nimankan Yurubiyanka kulankoodaas ayaa saddexda qodob ay talo soo karaan waxa soo kala kulankaas isagana laga qoray warbixinta qaar kamid ah warbaahinta hatta Jarmalku ay ka hadlayaan Jarmalka oo loo xil saarayo Yurub u xil saarayso inuu diro maraakib miinooyin haddii ay jiraan meelaha ku jira uu ka saaro miinooyin haddii Iiraan meelaha qaar ay uga tagtay miinooyin ay awood badan u yeelanin inay soo saarto inay markaa ka caawiyaan marka warbaahintii Jarmalka dhexdeeda buuq ka taagan yahay waxaa la leeyahay waa in baarlamaanka Jarmalka talaab kasta ciidanka Jarmalku ay qaadayaan uu fasaxa marka iska fasax ma midda kale Iiraan ma ogosha إيران waxay tiri markab tijaari ah oo ganacsi ah kaliya halkan mari kara miinaan saara ayaa ku diray miinada baada gashada beesh gaalada nooc kale u fakaraan waxay ku leeyihiin miinada meesha ku jirta saar miinada maxaa marka hore u saari weys dagaalka markuu socdo uu taraamid ilaa kaalaya ii imaada meeshan ila fura maxaa u cabsateen hadda marka nimankii miinada ku aastay iyagu tabar ma hayaan miya miinada ay ku soo baxsan karaan wala sheekadaas meel la tagaaliin marka iyaguna hawshooda halkaas iyaduna maraysa wararkaas ayaa ka soo kordhay dhanka kale dawladaha khaliijka ayaa iyaguna soo dhaweeyay talaabada Iiraan ay ku furtay Hormuz maraakiibtii dhinaca ka xanibneed qadar oo kale gaaskii wixii dhan adduunka looga baahnaa wixii dhan hadda gudbay marka meeshaan مرسي كله عن مرة ماشي ترافيك جام ماشي أرجع ساك السعودية حالكم مركا وركاس أيها جوا وينا أو سكر ليس عادي لا صور رافي
إيران أو فسحدي مرنبيوت كهرمس qaybtan ugu dambaysa aalaaba waxaynu ku soo qaadanaa intaynu barnaamijka ku jirnay wixii warara ee soo kordhay hadda war cusuba soo kordhay gacanta ku haya shuruudo cusub oo maritaanka Hormusa ayay Iiraan soo saartaa leeyahay meeshaan bar walba waxba isku qataaran cid kasta iska bari karta meesha ma jirtaa leeyahay haddaba marka shuruudaha aan idin akhriyo telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay shuruudo cusub ayay Iiraan soo saartay maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz wakaalada wararka ee Faris ee Iiraan laga leeyahay oo soo xiganaysa saraakiil sare oo Iiraaniyiin ayaa waxay sheegtay maraakiibtu waxay mari doonaan marinka Hormuz iyagoo la kaashanaya ciidamada Iiraan iyagoo maraya wado ay Iiraan u qoondeysay qodobka kale wuxuu yahay maraakiibta ganacsiga oo kaliya ayaa loo ogol yahay inay maraan marinka Hormuz maraakiibta militariga waa ka mamnuuc shuruuda kale waxaa ka mid ah maraakiibta marinka Hormuz ama kuwa xamuulka qaada waa in aan lala xiriirin dawladaha cadawga macnaha dawlad cadow ku ah Iiraan inaysan halkaa xataa ganacsigeeda iyo xamuulkeeda usa soo mari karin haddaba sii socoshada xayiraadda ciidamada badda Mareykanka waxay noqon doontaa jabinta xabad joojinta waxayna xiri doontaa wadada gaadiidka ee marinka Hormuz waa ujeedaan dhowr shuruudood ay hadda soo saareen waxa ugu muhiimsan waxa waaye meesha la marayo annaga idin sheegeen meeshaan mar idin dhahno halkan mara annaga la soo raaca nin iska mari kara meeshaan male miinada dada gashada meesha ugu jirtaa oo xisaabteeda yaqaan Jarmalna wuxuu ku leeyahay jeebeelada ka saara meesha maada gashada meesha dibakan wuxuu leeyahay ciidanka idin wadaay meesha waa la idin gudbinaya midda kale dawlad cadow ku ah Iiraan meesha ma mari karto dawlad cadow ku ah Iiraan halkan ma mari karto waa Israa'iil iyo Mareykan inta kale waa isdhiibeen Ingiriis iyo Faransiis iyo annaga dagaalka kuma jirnay yiraahdeen wuxuuda Yurub waa soo marsiisanayaan meesha laakiin cidda loo daleeyahay waa Mareykan iyo Israa'iil halka ma mari karaan midda kale muhiimka oo ku jirta shuruudaha waxa ka mid ah sii socoshada xayiraadda Mareykanka ee Iiraan waxay jabinaysaa xabad joojinta halkana way xiri doontaa ogaada marinbiyoodkana waa xirbi doonaa xabad joojintana waa jabi doontaa haday nimankan xayiraadda dekadaha wax aadi kara male meesha ka sii dhacaan qodobadaas marka ugu waaweynaa warka hadda soo dhacay shuruudahaas ay ahaayeen haddaba waa la socon doonaa wixii warar soo kordha waxa idin xusuusinaya maanta waxay ay jimce qisooyinka nadaara laba channelkeena waxaad ka heli doontaan qisadii aan soo geliyay maanta oo aad u xiiso badan dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ayay ka heli doonaan like garay oo share garay barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe ka samayso YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan mar kale ku kulmayno iyo barnaamij kale nabadgelyo